halkan waxaan idinku salaamayaa salaanta muslimka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. walaalayaal, salaan kadib waxaan maanta halkan u soo fadhiistay anigoo matalaya dhammaan guurtada Columbus Ohio oo dhaqameedyada aqoon-yahanada iyo indheergaradkaba islamarkaasna ah duqooda Columbus Ohio. magaciigana la yiraahdo Xaaji Maxamed Nuur, islamarkaasna ah gudoomiyaha Talawadaag Community Center. walaalayaal, maad iyo amaan iyo darajo iyo sharaf waxay u ahaatay Allah toonka sameeyay ee naga dhigay kuwa mid ah magac kaliya wato, midab kaliya wato, diin kaliya wato. maanta waxaan halkan kambalyo iyo bogaadin iyo dhiirigelin aan la soo koobi karin ugu soo gudbinaynaa walaalaheena daljooga ah ee hadduu ilaa kuuran yahay sharci dejinta baarlamaanka labada dhinac. waxaan rabaa halkan inaan salaan dheer iyo bogaadin dheer aan uga jeedino hawshii ay baarlamaanku qabteen oo ahayd howl aad iyo aad loogu farxo si wanaagsanna aan u soo dhaweynayno dhammaantayo haddaanu nahay jaaliyadda iyo intayna maqlaysa iyo intaani maqlaynba waxaan iyagana aan u soo jeedinayaa inay sidan oo kale ay hambalyo u diraan baarlamaanka oo ku bogaadiyaan howlaha ay wadaan. waxaad moodaa baarlamaanadii hore inay fadhiid ahaan jireen, laakiin kani waa ka duwan yahay. waxaad moodaa in tubtii toosnayd la qaaday oo waxyaalihii ka dhinaa dowladnimadeenna la dhammaystirayo. waxaan rabaa inaan mar labaad aan u mahad celiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo intii muddadii yareed ee koobnayd uu xilka hayay guulo waaweyn u soo hooyay ummadda Soomaaliyeed. walaalayaal, dhammaan dunida dalkeeda meel kasta aad ka joogtaan, Soomaali weyn waxaan idin leeyahay Ramadaan mubaarak. waxaa mahad iyo amaan iyo darajo iyo sharaf u ahaatay Allah koonkan sameeyay, kaasoo noo saamaxay inaan soo gaarno waqtigan 10 yoomkii ugu dambeeyay Ramadaan. waxaan leenahay Ilaahay samee iyo nabad iyo caafimaad ha noogu wada dhameeyo. intaa markaan dib ugu soo laabto walaalayaal, sida aad arkaysaan waxaa magaciiga la yiraahdaa Xaaji Maxamed Nuur, isla markaana ah oday dhaqameedyada odayaasha qaasatan Columbus Ohio, isla markaasna ah gudoomiyaha Talawadaag Community Center. run ahaantii waxaa aad iyo aad u bogaadinaynaa muddo dheerna aan u hanqal taagaynay inaan gaarno guusha ay taabteen goolkii walaalaheen sharci dejinta ee labada aqal ee aheeday meelmarinta dastuurka. runtii baahi weyn ayaan u qabnay inaan noqono qaran jiro, in aan ka gudubno ku-meelgaar dastuur, ku-meelgaar sharci oo aanan jirin waxna kala hago waxna kala qabto. run ahaantii maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan gaarnay guushii, inaan helnay waqtigii wixina kala hagi lahaa la meelmariyay. walaalayaal, waxaan hambalyo iyo bogaadin iyo dhiirigelin baan u soo jeedinayaa walaalihii isku howlay hawshaas dardargelinteeda una istaagay ee labada aqal. run ahaantii waa wax lagu farxo in maanta ay gaarno guushii aheeday loo riyaaqayay, laguna taahayay inaan meel marno sharcigii cod iyo qof. calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhammaan waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. waxaan u mahad celinayaa baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya labadiisa gole oo ansixiyey dastuurka 4 cutub oo ka mid ah, iyadoo ay arrintaasi tahay arrinaan aad iyo aad u soo dhaweynayno haddaan nahay qurba joogta. aniga magacaygu waa garaa Daawud Cashuro Warsame. waxaan ahay gudoomiyaha guurtida Habargidir, isla markaana waxaan ahay ku-xigeenka Talawadaag. waxaan aad iyo halkan uga hambalyeynayaa baarlamaanka labadiisa gole. waxaan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay ama aan u soo dhaweynaynaa go'aamada masayriga ay gaadheen baarlamaanku. hawshaasi
hawl baarlamaanadii hore ay ka gaabiyeen bay ahayd, laakiin ilaahay mahadii baarlamaankana ku guulaystay. waxaan kaloo aan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo tallaabooyin muddadii yarayd ee uu joogay xilka madaxweynenimada qabtay howlo aad u waaweyn. howlahaasoo aad iyo aad aanu ugu diirsanay haddaanu nahay shacabka Soomaaliyeed meel ama dibadda jooga ama gudaha jooge. howlahaas waxaa ka mid ah ku biirista ururada ganacsiga bariga Afrika, ka qaadista cunaqabatayntii hubka, Soomaaliya oo laga cafiyey deyntii, in ka badan 84 deegaan oo laga xoreeyey nimankii khawaarijta ahaa ee ragaadiyey ummadda Soomaaliyeed, amniga Muqdisho oo wax weyn iska bedelay oo aad iyo aadna dadku ay ugu riyaaqeen, 3,000 oo macallin oo dowladda Soomaaliya ay qaadatay, in lagu kalsoonaado ciidamada qaranka lagana maarmo ciidamadii shisheeye, dhaqaalaha Soomaaliya oo sare u kacay, in ka badan 15,000 oo askari oo iyagana la qoray, dastuurkii kumeelgaarka waynu aragnaaba oo laga saaray kumeelgaarnimadii. hawshaas oo hawl weyna. Soomaaliya oo muddo kadib awooddii dowladnimo lagu celiyey madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed, taasuna waxa weeye waa wax lagu farxo oo mudan in la soo dhoweeyo. 64 sano kadib waxaa maalintii taariikhda ah Soomaaliya waxaa loo ansixiyey dastuur rasmiya ah. marka waxa weeye madaxweyne xasan sheekh wuxuu qaaday tallaabooyin waaweyn oo wax ku oola. muddo yar oo kooban ayuu joogaa xilka madaxweynenimada uu joogaa, xafiiska madaxweynenimada uu joogaa. dowladdiisu waxay qabatay muddadaa yar wax aan lagu qaban karin sanado fara badan aan lagu qaban waayey ayuu muddo yaroo kooban qabtay. maanta wuxuu joogaa Haradheere, degmooyinka ugu waaweyn ee laga xoreeyey al-shabaab. dalka intiisii badnayd waa xor maanta. waxa weeye doorashaa laga qaban karaa. waa aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa madaxweynaha. waa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad wuu u hambalyeynaya. marka waxa weeye hawsh wuxuu qabtay oo mudan in loogu hambaliyo. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku waa hambalyaanu leen, waana anigu si gaaraan u salaamaya maadaama aan hay oday dhaqameed anigu ku hadlaya magaca odayaasha dhaqanka ummadda Soomaaliyeed. Soomaaliya waxay u muuqataa inay buuxisay kaalintii loo baahnaa, inay buuxisay inaynu hore u soconno, inuu wax badan iska keen bedelay. amniga magaalada Muqdisho oo dadka badankiisu annagu haddaanu qurba joognahay aan dadkii markaanu faamiladii iyo dadkii gudaha joogaan la xiriirno, rajo wanaagsan oo 100% bay noo sheegaan. marka waxaas intaasaanba wax la siistaaba ayan jirin. marka madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha NISA Mahad Salaad, wasiirka arrimaha gudaha, dhammaan xukuumadda waxaan halkan uga jeedinaynaa mahad ballaadhan iyo bogaadin baan u jeedinaa. hawl fiican baad noo haysaan, ilaahay idinla garab garo, noo qabtaan leena noona wada. waanu idinku taageersannahay, waanu idin salaamana. dhammaan jaaliyadda tala wadaag iyo intaan anugu odaga wahayba hambaliyay soo dirayaan, waana aad baan u taageersannahay. maasha Allah.